عبد برre dhammaan akhyaarta gabdhaha walaalaheeya iyo wiilashaba aad baan u salaamayaa hawshan waa hawl aad iyo aad noogu taagan waa mid ma aan ahayn ka fiirso yani aan ahayn wax easy oo ma aragtay wax in aad iyo aad loo dadaalo waa inaynu maanta guntiga dhiigisha isaga furnaa waxa la yiri irbad aruurtay masaar bay dhashaa haddii wax yar isku darno wax weyn bay noo noqonaysaa ciidankeena horta waa u duceyneynaa waa mushaahidiin ilaahay waxaan ka baryaynaa intii dhimatayna inuu ilaahay u naxariisto inta dhaawacana ilaahay u boogadhayo awlaadii iyo xaasaskii iyo sawjaadkay ka tageenna ilaahay uu caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado suuban siiyo dowladeenna aad iyo aad baan u bogaadinaynaa madaxweynaheena سعيد عبد الله الدني مدحونا كحجين كنا دولتنا سيدا هفنانت إيه هجرلانت أو أي السوح القامين تذا كله وحن آدي بقادنا يا رير بدلان أو دين أول بكسو إن شبي أو قبله سبايدي سوبنيان أو تكي وحينيان أي محنكو شيء حوله اللي كنا يو عن كلا هرين آد بان بقادنا يا ووحلو فرحه أنجونا وحنو سوبنيان wax ma aragtay tabarucaad aan la kala harayn walaalahayga meesha ku jira qof walbaaba yani waxa ka go'an inuu wax qabto oo reer Puntland ma sha Allah waa isku tashi fiican bay gaartay aad baan ugu faraxsanahay hadalka sii badin maayo dad badan baa jooga waxa aan kalo haday taluna dhaafto insha Allah sida walaalkii Cabdullaahi sheegay wasiir Cabdullaahi magaalada Boosaaso la haysta ahayd sidaan maqli jirnay oo dad badan baa laga qaadi jiray beeso ay nimankaas buuraleyda ka qaadi jireen niman baa iska soo gali jireen nimankan oromaha waxa la koox iyo waxay u imaan jireen baa la yiri wadanka wallahi 100 jeer baan ka hadli jiroon dhihi jiray war dadkan oromada wadankeena laga saaro waay dib ma ahane dheefku keenaya waa wixii iyagu hadda buuraha galay marka insha Allah tan waa ku guuleysanayna guul baynu gaareynaa ciidankeenu guul buu gaarayaa insha Allah markasta waa la hadalnaa gudaha wasiir ciidanka jooga ilaahay idankiisa waxa ku xigi doonta in laga safeeyo wadankeena Puntland nimanka la yiraahdo Oromo insha Allah ilaahay idankiisana waa laga safeynayaa annaga hadda reer UK waa isku maqanahay waa shirar baanu yeelanay aad iyo aad dhaqaalihi hadda waa gureernaa waa ku wada tala jirnaa ilaahayna hanala garab galo insha Allah wax aan reebanayna ma jirto waa arrin naga go'an waayo maanta cadawga nagu soo duulay waa mid guryahan yimid ilaahayna uuna guuleysiinayaa teeda kale dawladda waad ogtihiin maanta dhexe wax faa'iido aan kuma haysano wax wala aan mana ka sugeyno mana rabnaba inay sharkooda iyo dhibkooda dhoole yimaadaan annaga isku filan reer Puntland waxaan qabnaa inaan isku filannahay marka hadalka ku sii dheeraan maayo waan idin wada salaamaya hawsha halkaa nooga socoto wasiir Cabdullaahi waa ku salaamaya si gooni oo khaasa insha Allah ilaahay idankiisana way noo dhamaan doontaa hawshana waa ku tali jirnaa meel kasta oo reer Puntland magaca Puntland waa dad wax garada oo ilaahay wuxuu og yahay inaynu daacadnahay miskiinka u gargaarno dadka aynu dhimantaas way ilaahay noogu gargaaraya oo gacanteenu markastaba u sareysa marka ilaahay idankiisa wax dhiba jirimayaan waan guuleysanayna haddana waan guuleysanay aad baa u mahadsantiin madaxweyne waan ku salaamayaa si khaasa si gooniya insha Allah kulligeen waa salaamantihiin raali iga ahaada hadda caawa iska garan karta qof ugu horeyso manba firfircoona laakiin insha Allah marra taaniya ilaahay idankiisa kulligeen soo dhawaada idin leeyahay walaalahayga meesha ku jira qalbi furan baa idinku salaamaya kulligeen waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye waa inaynu dadaalno wax kale ma aha waa inaynu maanta shilin dhigan waa inaynu maanta aan dahabada gadnaa haddaan guryo haysan lahayn wallahi waa gadi lahaynba laakiin ilaahay idankiisa way imanaysaa wax kasta qalbigaan ka noolnahay insha Allah maskaxdaan ka noolnahay dad nool oo jiraan nahay ilaahayna wuu na garab gelayaa guushana inaga helena insha Allah waa idin salaam kulligiin Jibriil aad baa u mahadsan tahay inaad igu soo casuuntay maanta meeshan abo
aad baa u mahadsantahay jawaahir gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee UK waa kaaga mahadcelinaya runtii dadaalkaaga iyo waxqabadkaaga iyo diyaar garowgiina jaaliyadda UK oo dhan runtii aad baa ugu ammaanantihiin account-kuna hadda waa si gaar ah dhammaantiin idinla wadaagi doonaa gudoomiyaasha jaaliyadaha waxaan markaa u sii gudbayaa jaaliyadda Denmark ambassador Abshir soo dhow Jibriil السلام عليكم والسلام يا دمان مدشة aad baa idin salaamaya madaxweynuhu ugu horeeyay hoos u daga hamarku soo qaaday jaaliyadda Faransa waa CC inta ambassador Abshir soo laabanayo Nabil gudoomiye Nabil sof haddaan ku maqlayaa soo socda jaaliyadda Denmark soo Nabil oo isu gudoomiyaha France السلام عليكم جبريل وأبو سلامة يا أديجي مدحوينها إلياس عثمان دمان مسؤول وزير عبد الله جاليدها دمان ولا له مش كتير ودن ريد بلدان أدبان السلامة يا وأنا كأجمع مهد علينا يا مدرسة أنا هدان كوهال مجا جاليد دنمارك أنا مجا وأبشر كلن كهرامي كورونا واجو وكسوق يبقلي هرتبر كوباد مدحوينها وقت جو جاليدها سي وكم هتسين هي dawladana waxaan rabaa iyo shacabka reer Puntland iyo ciidamada dhamaan inaan ku bogaadiyo hawlgalkan oo arintaan oo ahayd qodax muddo dheer nagu jirtay hadii arintaas aan ku guuleysano aniga waxa ii muuqatay inay guul weyn tahay insha Allah mustaqbalka aan guuleysan doono marka anaga hadda jaaliyad ahaan reer Denmarkna waa diyaar garoonay insha Allah tabaruceynina insha Allah asbuucyada soo socda waa soo gudbinayna insha Allah marka intaasaan ka leeyahay laba qodob baan rabaa madaxweynaha inaan ka codsado hadii ay maaragtay meesha waa soo koobaya hadal badan ma dhahayo maadaama muddo la hadlayay qodob koobaad wuxuu yahay maadaama howlgal lagu jiro dawladda diyaar garow fiican ay samaysay oo dhan kasta sida laga soo hadlayba waxaan rabaa inaan dawladda ka codsado madaxweynaha maadaama uu joogo in amniga ciidamada iyo maaragtay sida uu howlgalayaan iyo qalabkooda in arintaas dawladdu mas'uuliyad weyn iska saarto oo maaragtay si nafta ciidamada ay damage-kooda u yaraado arintaas dabcan kolley ciidanka u xil saaran laakiin mas'uuliyintuna inay gacanta ku hayaan oo markasta lagu dadaalo in ciidanka damage-kooda inuu yaraado arintaa waa codsan lahaa waxyaalaha aniga niyadda ku hayo waxaa ka mid ah jaakadaha xabaddu aysan karin oo kale iyo maaragtay qalab kale oo ciidanka saacidaya inkastoo arrin military ay tahay ana hadda halkan ka sheegayn laakiin dawladda iyo madaxweynaha Farantaas waa u gudbinayaa waa raba inuu gudbiyo maxaa yeelay askari kastoo naga baxa naftiisa wax weeye qiimo weyn bay ugu fadhidaa marka arrintaas waa waajib aan gudanayo qodobka labaad wuxuu yahay annaga jaaliyad ahaan waa dadaalayna hadda meeshaan jaaliyad Denmark oo kale dad kooban baan nahay laakiin aad baan u dadaalayna insha Allah Puntland waa garab taaganahay markastana waa garab taagnaan jirnay laakiin xoogaa wada shaqaynta waxa moodaa jaaliyadaha iyo dawladda in xoogaa gaabis ka jiro marka maadaama madaxweynaha joogo cid ka sareysa ismeesh joogan caawa waxaan rabaa inaan ka codsado arrimo waxaa jira jaaliyadahan aan dawladda uga baahanahay oo ay kamid ahayd kaar maaragtay identity cards oo qurbo joogta loo sameeyo kale iyo xiriir toos ah inaan yeelano dawladda waxay nooga baahatay iyo waxaan nagu uga baahano marka madaxweynaha waxaan ka codsan lahaa in hadda heli karno qof oo focal pointed ah oo maaragtay dawladda ka tirsan oo Soomaaliya garoowe jooga oo markaan wax u baahano mise anaga wax nolol ka baahdo aan toos ula soo xiriirno si markaas meelaan uga bilowno marka qaarkood aan u garan weyno mise meelo badan aan u soo marno hawl yar anaga u baahan arrintaas madaxweynaha waa ka codsan lahaa aad iyo aad baan maartay u dadaalayna waan ku faraxsanahay arrintan waajibkooda way soo gudbinayaan aniga shakhsiyan waxa ii muuqata guul weyn inay Puntland maartay dagaalkan ka bacdi inay guul weyn gaari doonto arrintaasna maartay waxaan uga mahadnaqayaa dawladda iyo shacabka iyo ciidamada iyo madaxda oo madaxweyne Ilyas ina kala joogo iyo madaxweyne Dani oo ayaga maartay go'aanka siyaasadeed qaatay oo loo baahnaa arrintaasna muddo la sugayay marka waxaan leeyahay si fiican waa haleesheen hore u socdo waana inuu ku amaanayo waa mahadsantihiin aad baan mahadsantahay gudoomiye Abshir jaaliyadda Puntland ee Denmark oo kaaga mahadcelinaya aan u gudbo Nabil iyo jaaliyadda France
ويه مختار نبيل أوكي نبيل شما أصبر عن ورينيا جالية إن صوفول إن جالية إن فرنسا كور صوفول إن ويه وحن سينا يا مركان إن مختار كلوة هي جالية النرويج لبضنا شق جالية النرويج وانكوحشيني الله إن أحمد سلطان سودو قدوميها جالية بوتلان النرويج ما الله مقلع هدي اللي مقلها لك شاكو ها والو مقلع ها marka hore madasha waa salaamaya waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof kasta meeshu ka joogo waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha iyo wasiir Cabdullaahi oo warbixin hufan oo sharaf leh oo wanaagsan siiyay waxaan kaloo mahadcelinayaa walaal Jibriil oo platform iyo madal wanaagsan anu habeenka hore maan joogay laakiin caawanimi shalay uu soo sheegay waa ku mahadsan yahay walaalkay inuu barnaamijkan noo qabtay waana aad baan u dhiirigelinayaa walaal waxaan kaloo bogaadinayaa taariikhiyan ciidanka Puntland wageesiyo dagaalkan dagaal ka halis badan oo boorihii caalmado oo ka xun baa soo maray xilli waliba Puntland ka tamar yareyd xilligii madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole ciidanka Puntland guul bay ka keeneen taariikhiyan Puntland ciidankeeda lagama adkaan dagaal ay galeen waana niman daacadnimo iyo hufnaan ku dagaalama waa nimankii xamar dowladnimadii geeyay marka horta waxay ku suntan yihiin dad nafrayaal ah oo shuhada oo geesiyaal ah oo waxay u dagaalamayaan yaqaana oo dadkooda iyo dalkooda waa mataqaana naftooda u hura taa way ku mahadsan yihiin waxaan kaloo bogaadinayaa madaxweyne Saciid Cabdilaahi siyaasadiisa ah inuu nimankan la dagaalamayo oo soo afjarayo ilaa hadda dawladda waxaan aaminsanahay inay si aab fiican tahay dawladda waaweyn baa ku fashilma nidaamkan argixisada oo ceeb badan kala kulma laakiin ilaa hadda dawladdu habkay u maamushay waxaa ka muuqata qaangaarnimo waxaa ka muuqata transparency iyo hufnaan waxaa ka muuqata waayo aragnimo waa bogaadinayaa dawladda waxaan se rabaa oo kale dadkan ciidanka wax intii ku dhimatay Allah u naxariisto iyo intii ku dhaawacantay dawladda wax u qabanaysoba in policy laga yeelo hadhowto ciidamada rehabilitation kooda oo guddiga